waxyaabaha dunida mamnuuca ka ah ee qofkii lagu soo qabto dambi weyn uu ku muteysanayo balse dawlad waliba haddana ay samayso waa shaqada sirdoonka. laantani sirdoonkuna si sharciyeysan ayuu waddan walba u leeyahay. haddana dadka u shaqeeya laantani in la ogaado ama in la soo qabto waxa ay ku muteysan karaan dembiyo xitaa gaarsiisan in nafta la dhaafiyo. haddana shaqadani sirdoonnimadu waa shaqada ugu muhiimsan ee dawlad ay leedahay. hay-adda sirdoonka ee waddan oo la cuuryaamiyo si degdeg ah waddanka waxaa ku badanayo falalka dembiyada. qalalaaso iyo amni la'aan tiro badan ayaa dalka lagu arki karaa. laakiin marka uu waddan uu haysto sirdoon xoog badan waxa uu awood u yeeshaa falalka dembiyada inta aysan dhicin ka hor inuu ka hortago. haddaba muuqaalkani waxaan ku soo qaadan doonaa shaqadani sirdoonnimada ee aadka u halista badan, dadkii lagu soo qabtay ee fashilmay, ciribtoodii dambe sida ay noqotay. kuwanina waa qaar ka mid ah dadka ugu caansan ee taariikhda sirdoonka ee laga qoray buugaag, filimaan badanna laga sameeyey. kooxdii dhalinyarada ee shanta ahayd ee jaamacadda Cambridge waxa ayna ahaayeen kooxdani koox jaajuus ah oo ku sugnaa dalka UK sanadihii 1950kii. waxa ayna dhalinyaradani u shaqaynayeen oo macluumaad sir ah u gudbinayeen dawladdii Midowgii Sofiyeetka. iyaga oo dhalinyaradani dhalasho ahaan ka soo jeeda Ingiriiska, haddana waxa ay ahaayeen jaajuusiin Ruushka u shaqeeya. waxaa kala duwanaa habfakarka siyaasadeed ee Ingiriiska xilliga uu ku socday iyo dhalinyaradani mabda'a siyaasadeed oo ay ku qanacsanaayeen. tanina waxa ay dhiiranaan u siisay in ay taageeraan difaacaanna siyaasadda Midowgii Sofiyeetka. dhalinyaradani shanta ahayd ee jaamacadda Cambridge-na waxa ay fikirkani jaajuusnimada laga soo dhaadhiciyay intii ay jaamacadda Cambridge ay dhiganayeen ayna ahaayeen arday waxbarata. waxa ayna dhalinyaradani ahaayeen kuwa si weyn uga soo horjeeday mowqifka dawladda Britain ee anti-Sofiyedka. khubarada Midowgii Sofiyeetka waxa ay dhalinyaradani ka dhaadhiciyeen falsafada Midowgii Sofiyeetka, welibana in mabda'a hanti wadaaga ee Midowgii Sofiyeetka uu ku shaqeeyo in uu ka fiican yahay midka Britain ayay ku qanciyeen. dhalinyaradana waxa ay qaateen nidaamka hanti wadaaga, waxa ayna bilaabeen in nidaamkani ay u arkaan nidaam badbaado u ah iyo mustaqbal fiican dalkoodii Britain, balse xukuumaddu nidaamkani ma ay rabto. sidoo kale dhalinyaradani fikir ahaan waxa ay ahaayeen kuwa sidoodiiba mucaarad ku ahaa Ingiriiska. jaajuusiinta qarsoon ee Midowgii Sofiyeetka si gaar ah ayay dhalinyaradani xoog u saareen marka ay arkeen diidmada iyo sida ay uga soo horjeedaan dawladda Britain, ilaa ugu dambeyn dhalinyaradani ay ka aaminaan in dawladdoodii waxba aanan looga qaban karin ilaa in gudaha laga fashiliyo un mooye, maadaama badbaadada Ingiriiska ay ku jirto nidaamka hanti wadaaga ee Midowgii Sofiyeetka. waa sida ay u arkeen. sidaasi ayayna dhalinyaradani shanta ah ay ku noqdeen ugu dambeyn jaajuuso Midowgii Sofiyeetka u shaqeeya. dhalinyaradani oo jeclayd xalna u arkayay nidaamka Midowgii Sofiyeetka iyo Ingiriiska oo olole loogaga soo horjeedo Midowgii Sofiyeetka waday ayaa keentay in dhalinyaradani in uu rabitaankoodii ka xoog badnaado tan dawladda. sidaasi ayayna jaajuuso daacad u ah Ruushka ku noqdeen. dhalinyaradani qaar ka mid ah ayaa jagooyin muhiim ah dawladda Britain ka soo qabtay. marka ay jaamacaddu dhammeeyeen, dad waxbartay oo dalku u baahan yahay marka ay noqdeen waxa ay fursad u heleen jagooyinka ugu sareeya ee dalka inay wax ka qabtaan. qof jaajuus ah in xil uu qabtana halis weyn ayay leedahay. macluumaad khatar ah oo sir ah ayay Midowgii Sofiyeetka u gudbin jireen. dhalinyaradani jaajuusiinta ayaa qaar ka mid ah waxa ay ka soo shaqeeyeen MI6 hay-adda sirdoonka ee Ingiriiska. qof jaajuus ah oo u shaqeeya dawlad kale oo Midowgii Sofiyeetka in waddankiisiina uu ka noqdo mid isla hay-addii sirdoonka u shaqeeya waa arrin aad u halis badan. hay-addii mudneed in ay ka shaqeeyaan dad wanaagsan oo daacad ah haddii ay ka howlgalaan dad jaajuusiina, dhibaato amni oo aad weyn oo weliba aanan laga soo kabsan karin ayaa lagala kulmi karaa. dawladda Ingiriiska waxa ay dhalinyaradani u arkaysay xilliga kuwa firfircoon oo wax soo bartay, laakiin in ay jaajuuso ahaayeen oo dawladduna mucaarad ay ku ahaayeen
kama aysan warqabin. Dagaalo badan oo Ingiriiska iyo Ruushka dhexmaray ayay sabab u noqdeen dhalinyaradani in Ingiriiska lagu jebiyo macluumaadka sirta ah oo ay bixinayeen darteedii, maadaama isla iyagu sirdoon ay ahaayeen. wax walba oo xog dagaal ah iyo diyaargarowga Ingiriiska inta uu la eg yahay waxa ay si hoose u gudbinayeen Midowgii Soofiyeedka. ujeedkoodiina waxa uu ahaa xitaa haddii Midowgii Soofiyeedka uu guuleysto dalka Britain, mabda fiican iyo nidaamka hanti wadaaga in dalka oo dhan laga wada qaadan doono. yacni si kooban waxa ay u arkeen xogtani ay bixinayeen wadankoodii in ay ku badbaadinayeen. dhalinyaradana ugu dambeyn waxaa lagu baraarugay qaarkood in jaajuuso ay ahaayeen sanado badan kadib, qaarkoodna intaa kadib silsiladii oo dhan ayaa furfurmatay. mid walibana waxa uu sheegay midka kale. kuwii darnaa ee sirta badan bixiyey ugu dambeyn waa la dilay, kuwa kalena waa la xabisay. ilaa iyo hadda xitaa macluumaad kooban oo keliya ayaa laga og yahay xogta iyo sirta iyo sida Midowgii Soofiyeedka ay ugu guuleysteen ilaa iyo heerkani qof soo gaaray oo waliba hay-adaha sirdoonka ee Ingiriiska ka shaqeeya in jaajuus Midowgii Soofiyeedka in uu noqdo. waxaa laga qoray kooxdani shanta ee Cambridge buugaag aad u badan, xitaa dukumeentariyo ayaa dhalinyaradani qisadoodii laga sameeyey. waana qiso caan ah marka dunida sirdoonka la joogo. waxaase cajiiba sida dhalinyaro jaamacad dhiganaysa waliba kuwoodii ugu firfircoonaa jaajuusiinta Midowgii Soofiyeedka ay ugu guuleysteen inay u shaqeeyaan, amaba nidaamkoodii ay ugu qaniciyeen heer ay ka dhaadhiciyeen in dalkoodii ay khiyaanaan. tanina ilaa iyo hadda waa wax adduunka oo dhan ka jiro. siyaasiyiinta, wasiirada, xildhibaanada qaarkood ama intoodii badana waa kuwa jaajuusa oo iskoodii u shaqaysta, xiriirna la leh dowlada kale. si looga hortagana maanta jaajuusiinta noocani oo kale dunida ma jirto, waayo aad ayay u adag tahay oo lama kala garan karo qofka jaajuuska ah. qofna lama ogaan karo sida uu macluumaadka uu hayo uu u gudbinayo. dunidani kapitaalizamka noqotay maanta ee qof waliba mabda inuu u shaqeeyo ka sokow uu u shaqeynayo sidii uu lacag uu ku heli lahaa. hadba xogta xasaasiga ee uu iibsan karo ayuu siyaasiga uu u xabilaa ciduu u shaqeeyo, halkaasi ayuuna lacaga xad dhaaf ah uu ka helaa. qisada dhalinyaradani jaajuuska ku noqday dalka ay u dhashteen, waliba iyaga oo qaarkood sirdoonkii dalka oo dhan lagu aaminay khiyaanay, waxaa laga faa'iidayaa casharo badan. in bani aadamku marnaba mabda ama fikir isaga uu samaystay in aysan ku wada kulmi karin. siyaasadda Ingiriisku ayay naceen dhalinyaradani, kadibna siyaasadda ay jecel yihiin ee Midowgii Soofiyeedka ayay qaateen. diinta Islaamka mawduucyadani oo kale, kulminta bulshada iyo wada shaqayntoodii waxa ay asal ka dhigtaa ikhlaas, in qof waliba daacad in uu noqdo. sidoo kale Qur'aanka Kariimka midaynta muslimiinta oo kale marka uu ka hadlayo si aysan isku khilaafin dadka, waxa uu ku kulmiyaa sida ku xusan suuradda Al-Imraan aayadda 103. dadow dhammaantiinii qabsada oo ku wada kulma xariga Alle, hana iskhilaafina oo ha kala tagtagina. bulshaduna mabda sidani oo kale marka uu dhex yaalo dhammaantoodiina si ikhlaas ah daacad ay u wada yihiin, kuwa isku wada xiranna ay noqdaan, way adag tahay qof bannaanka joogo in bulshada uu kala furfuro. laakiin haddii bulshada dhexdoodii iskhilaafaan ayna kala tagtagaan sida tusbaxa oo kale ayuu mid walbo dhinac uu ugu dhacayaa. waana xaaladda muslimiinta ee maanta adduunka ku wada nool. laakiin sida maanta adduunka ka jirto aad ayay u adag tahay in qof daacad uu u noqdo, ilaaliyana sir waliba nooca ay ahaato. wax uu ku bedelan karo haddii qof uu helo, qofka ma jirto wax uu diidayo in sirtaa uu bixiyo. waliba haddii qofka aamin uu ka noqdo in aanan la ogaan karin, si hoose ayuu xog walba u bixinayaa. waayo mabda ama dareen qofka u diidayo in uusan sirtaa bixinin ma jiro. wax walba maadaama hadba sidii qofka dhaqaaluhu heli lahaa ama nafta
naftiisii oo keliya uu ka fakari lahaa sida kapitaalisamku u shaqeeyo, hantida qofka gaarku u leeyahay ayuu xoogga u saaraa halka ay manfaco ugu jirto. waxaana sidani ugu wacan in aysan bulshooyinka oo dhan ay ku wada midaysnayn mabda'a islaamka ee ikhlaaska asalku u yahay iyo xariga ay ku wada kulansan yihiin oo ah xariga islaamnimada ee u hoggaansanaanta alle. sidoo kale qisada dhalinyaradani shanta ah ee jaamacadda Cambridge waxaa ku jiro casharo intaa ka badan oo laga faa'iiday qisadoodii. tanina waa darsiga koobaad oo kaliya. dhinaca kale sirdoonada fashilmay ee dunida caanka ka ah waxaa ka mid ah Julius Rosenberg iyo xaaskiisii Ethel Rosenberg. waxa ayna ahaayeen dadkani dad Maraykanka u dhashay balse asalkoodii Yahuudda ka soo jeeday. waxaa la sheegay si qarsoodi ah in ay macluumaad u gudbin jireen xisbiga komuniisamka yacni midowgii Sofiyeetka. haddana waxa ay la shaqaynayeen dowladda Maraykanka. Someone had passed America's atomic bomb secrets to Russia. This was an undisputed fact that the whole world knew. The federal government had laid the crime at the doorstep of two native New Yorkers, Julius and Ethel Rosenberg. waxaana lagu soo eeday in midowgii Sofiyeetka ay u gudbin jireen macluumaadka nukliyeerka ee Maraykanka uu haysto. markii Maraykanka nukliyeer uu ku dhuftay magaalooyinka Japan, Hiroshima iyo Nagasaki, midowgii Sofiyeetka ayaa isaguna si degdeg ah bannaanka u soo saaray hubkiisii nukliyeerka. waxa uuna sidaa uu ku noqday Maraykanka kadib kooxdii labaad ee samaysata bambadani nukliyeerka. siyaasadda nukliyeerka ee Maraykankuna waxa ay noqotay mid aanan lagu faani karin maadaama dowladdii midowgii Sofiyeetka ee cadowga u arkay iyaduna nukliyeer ay samaysatay. in midowgii Sofiyeetka si degdeg ah u samaysto nukliyeer isaga oo weli Maraykanka aanu ku faanin hubkani nukliyeerka waxaa sabab looga dhigayaa sirtani in ay bixiyeen labadani qof ee jaajuusnimada lagu soo eedeeyay. dunida iyada oo aysan jirin cid haysata ama samaysatay hubkani nukliyeerka, wadankii ugu hore ee samaystay Maraykanka waxa uu sida dabiiciga ah uu bilaabayaa in uu ku faano uuna awood u sheegto isaga oo ku cabsi gelinayo hubkani casriga ah ee uu helay dowladaha kale. laakiin Maraykanka isaga oo aanan ku faanin, duniduna aanan in badan lagu buunbuuninin hubkani aadka wax u qariba ee nukliyeerka, midowgii uu arkay inay cadow yihiin ayaa iyaguna ka soo horbaxay. waxaase la sheegaa dadkani ninkani iyo xaaskiisii eedayn un mooye dembi toos ah oo la taaban karo maxkamadda Maraykanka kuma aysan helin. daliil aysan dad badan ku qancin ayay maxkamaddu soo bandhigtay. waxa ayna sabab u noqdeen dadkani dartoodii inay u banaanbaxaan dadyow aad u badan maadaama iyagu ay qiranayaan in aysan dembi lahayn, maxkamadduna ay ku tilmaamtay in ay dembiile yihiin. daliilka maxkamadduna mid aanan lagu qancin ayuu dadka agtoodii ka noqday, laakiin maxkamadda agteedii daliil xoog badan ayuu ka ahaa. waxaase cajiib ah qisada labadani lamaane ee jaajuusnimada uu ku soo eedeeyay Maraykanka in ay ku dhammaan doonto daacadnimo iyo kalsooni iyo jacayl aad cajiib ah oo dad badan ay la cajabeen. maxkamadda Maraykanka marka ay lamaanahani ay soo eedeysay si eedaynteedii ay natiijo ay uga hesho, waxa ay dadkani u soo bandhigtay cafis iyo in ciqaabta laga qafiifin doono haddii maxkamadda runta ay u sheegaan qirtaana dembigoodii. laakiin waxa ay ku doodeen ninkani iyo xaaskiisii wax dembi ah iyo in aysan iyaguba sirdoon oo dhan inaysan shaqo ku lahayn. maxkamaddu waxa ay isku dayday kolkani in ay kala jibiyaan ninkani iyo xaaskiisii. gabadhii uu qabay ee Ethel ayaa waxaa lagu dhahay haddii aad run inoo sheegto adiga waa lagu cafinayaa, dembiilahana waxaa noqonaya ninkaadii. haddii aad inala heshiiso cimrigaagii inta ka dhiman adiga oo dembi aadan lahayn ayaad bannaanka isaga noolaan karta. xaqiiqada sheeg si aad naftaadii u badbaadsato. nasiib daro gabadhii ma aysan aqbalin. waxa ay sheegtay wax dembi ah oo dhan inaysanba lahayn. laba qof oo daacada xitaa haddii si kala gaargaar ah loo waraystay, mid walibana ballanqaad gaar ah loogu sameeyey cafis iyo ballanqaadyo badan kadib, si daacada oo midkood midka kale lamaanaha uusan qiyaamin ayay qisadoodii ku dhammaatay. waxa ay noqdeen kuwo isku wada afa oo marnaba aanan isgafin. ugu dambaynna maxkamaddu go'aan
go'aankeedii u gaarka ahaa ee dad badan ay dhaliileen ayay ku fulisay waxaana labadani lamaane ee jaajuusnimada lagu soo eedeeyay lagu fadhiisiyay kursiga korontada halkaasi ayaana lagu dilay iyaga oo aanan afkoodii ka qiranin in ay ahaayeen sirdoon Ruushka u shaqeeya tanina waxa ay sabab u noqotay in malaayiin shacab ah oo Maraykan ah in ay banaanbaxaan in maxkamadu cadaalad aysan ka jirin waxaana labadani qofood lagu hordilay kaamirooyinka hortoodii dhinac marka ay dhacdadani ay ka tahay mid laga murugoodo dhinaca kalena laba lamaane in aysan isqiyaamin ilaa laga dilana hal meel in ay wada joogeen iyaga oo is arkaya ay kursiga korontada ku fadhiisteen sabiradanina waa kuwa xaqiiqada ah ee maalintii dilkoodii la qaaday labadani lamaane ee qisadoodii sida filimka oo kale ah ee la moodo dhinacna xanuunka ka ah dhinacna daacadnimada iyo jaceylka laga faa'iidayo waxaa laga qoray buugaag tiro badan